يوسف كيس عبد الله حقيها ورفافينتا ee xisbiga mucaaradka ah u cid oo qayb ka mid ah warfidiyeenka kula hadlayay xafiiska xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay safar uu dalka Itoobiya ku joogo gudoomiyaha xisbigaasi Engineer Faisal Cali Waraabe isagoona sheegay inuu kulamo la qaadan doono mas'uuliyiinta ugu sarsareeya dawladda federaalka ee Itoobiya sidii caadada iyo dhaqanka u ahayd gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid Engineer Faisal Cali Xuseen waxa uu khamiistii 12 bishan maalintii khamiista safar shaqo ugu aanbabaxay dalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya isagoo halka kula kulmi doona madaxda dawladda federaalka Itoobiya ururka midowga Afrika ama African Union diblomaasiyiin beesha caalamka ka socota matelaysa adduunyada inteeda kale isagoo kala hadli doona sidii caadada u ahayd iyo dhaqankaba arrimaha qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah bidmillaahi kariim wuxuu ku sugnaan doonaa ilaa salaasada hadduu Ilaahay yiraahdo isagaana safarkiisa inooga warbixin doona insha Allah bidmillaahi kariim isagoo dhigtalisa sidaasaan la socodsiinaya shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh geesta kale Yuusuf Kaysa Cabdilaahi waxa uu ka hadlay gudida sicir bararka ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u saaray inay wax ka qabtaan arrimaha sicir bararka isagoona dhaliilo kala duwan u soo jeediyay sicir bararku xisbi ahaan waxaanu aaminsanaynaa inaanu afaqaraan ahayn masiibo meel kale ka timidna maaha waxa weeye waa maamul xumo dhaqaale oo sida loo daweeyaa ay fududahay marka waxaan leenahay gudidaasi way la ambatay hawshii loo diray madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne daasadii caana ahayd ee maraysay $18 $24 bay maraysaa dadkii dan yarta ahaa waxay u dhowdahay inay dalka ka haajiraan sixir barar awgi ugu dambeyntii xogaya Yuusuf Kaysa Cabdilaahi ayaa waxa uu si adag uga hadlay xukun maanta ay maxkamadda Soomaaliland ku riday abwaanad Nicimo Qorane kaasi oo ahaa 3 sano isagoona ku tilmaamay tacaddi iyo sharci darro waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa kiis saaka la gudbiyay oo qareenadu sida warbaahinta bakaarkiisa ay ku yeereen ay ka sheegeen in inanta Nicimo la yiraahdo saaka xukun ku dhacay 3 sano lagula kacay tacaddi iyo jirdil lagula kacay waxaana sameeyay ciidanka sirdoonka iyo ciidanka CID da labaduba way sameeyeen sida iyada ay maxkamadda dhexdeeda ka tiri annagoo ka mid ah dhageystayaashii fadhiyay maxkamadda waa Idris Cabdillah Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ah ee Universal Hargeysa